kolkii aad rabto inaad talaasho geed waa inaad hesho dhulkii lagu talaali lahaa. mar labaad waa inaad diyaarso oodii aad uga difaaci lahayd noolaha. waa inaad u banayso meeshii ay ka soo geli lahaayeen falaaraha qoraxda. sidoo kale ciddii ka warxayn lahayd iyaduna waa qodob meesha ku jira. rabtaa waxaa ka dhigan jacaylka. jacaylku waa dareen laba qalbi sidoo wada jir ah ugu beeraan. waxa uu leeyahay wax koriya oo kobciya iyo wax wiiq awoodiisa korimeeya. qodobka koowaad waa kalsoonida. kalsoonidu waxa ay ka mid tahay qodobka ugu tunka weyn ee jacaylka labada qof ee ka taagan yahay. kalsoonidu waxa ay xiriirka labada qof ugu jirtaa halka udubka iyo dhigtu isu jiraan aqalka. balday hal abuurkan sida uu noogu sawiray kalsoonida iyo jacaylka. aasaaska guurkiiyo aqal waxa adkeeyo udubada u taagaa ogow waa kalsoonida iyo unuga caashaqa hal abuur kale isna wuxuu inoo tilmaamayaa kalsoonida oo la waayaa inay wiiqi karto xiriirka kalgacal ee labada ruux dhex yaal. hadduu gabo kaalintiisii kalsooni haddii la waayo ma karo caashaqa runtiiye ka baaji inuu isqaamo. kalsoonida ka sokow ballanta is-aaminaada dareen qaybsiga kalgacalka iyo naxariis muujintu waa waxyaabaha ugu mudan ee ku taagan yahay xiriirka labada qof. cabdiraxmaan xaldhiis si farshaxanaysan ugu maansooday waa tuu lahaa laba weelka caashaqa ku wadaaga meel qudha laba aan wad mooyee wacadkooda burin karin oo kalsooni waafiya waageeray keligood ayaa wixii isdiirsada weligood ahaadee wacdaraha jacayl laba waxaa dhiga kuwii hela wadneen laba dareen sida midba hadduu weerarayo wiiqeen ayaamuhu ka kalena weereer badda. qodobka labaad waa naxariista kalgacaylka iyo is-ixtiraamidda. ma jirto waxa uu bini'aadamku ka jecel yahay hadalka dabacsan ee naxariista iyo kalgacaylka uu ku dheexan yahay. kolka ay nolosha lamaane joogtana iyadu way ka sii xag jirtaa. bal qiyaas qofkaaga aad dareen ahaan u tiraahdo adigu hortaa cid ma jeclaan hadda lafteedana qorshaha iguma jiro cid aan adiga jacaylkaaga ka ahayn. balday hal abuur xaashi ibraahin saar oo dareenkaasi inoogu suugaameeyey waxa uu lahaa hortaa ruux kale ma jaman ma jiro mana jeclaan jirhkaygiiyey maan odhan haddana kuma tala jiro jacayl adi aan ahayn ifka lama joogi karo. waxaa la sheegaa nin arbeed oo muujinayay xaaskiisa jacaylka uu hayo ayaa laga hayaa inuu yidhi haddii aan lahaan lahaa kun qalbi kun jeer adigaan ku jeclaan lahaa. waa dareen muujinaya wehelkaaga inaadan waxba kala hagran. hadduu kun ahaan lahaa qalbiga kaa hawshiga adaan keligaa runtii kalgacayl aan kana go'ayn xubbii kuu xuri lahaa. naxariista iyo kalgacalka ka sokow u samafalka iyo caawinta wehelka nolosha waa mid waajib diini ah. garabka isutaagga iyo dhiirigelinta haweenaydu waa astaan ka mid ah sifooyinka lagu garto nin rageedka geesiga ah. hal abuur maxamed haykal muxamed oo si aftahannimo ku dheexan ayuu inoogu tilmaamay waa tii uu lahaa wehelkayga noloshaay kolkuu wacad diiniyo xaqi waalidguutiyo waxyi eebe laga tago wax kastaa la jecliyo aadmigu la qaraweyn adigaa ka sii wacan anigana wad mooyee weligay intaan jiro waxa igu wallaahi inaan wanaag kuu falo. waa dareen aad u xeel dheer oo tilmaamaya jacayl lala godgelay. waa dib u dhalasho labaad oo jacayl ah. ifkii waa la kala tagay. balday hal abuur maxamed dhaaley wuxuu ka yidhi dhowr jeer haddaan marka aan dhintaba dib u dhalan lahaa dhulka waxaa ku nool adun baan dhabtii daayaha ishqiga ugu dheexan lahaa. qodobka kale waa dabeecadda. dabeecaddu waa qodobka labaad ee soo raaca kalsoonida. waa tiirka labaad ee isku xaya labada ruux ee nolosha lamaanaha ku ah. inkastoo in qof kasta qofka kale dhankiisa uu kula dhaqmo dabeecad wanaagsan iyo isfaham ay isla jaanqaadi karaan noloshooda. qodobka kale waa axdiga is-aaminidda iyo ballandhowrka. axdi iyo wacad marka la soo hadal qaado calaf baa la xasuustaa. guurku waa xalaf waa mid ka mid ah khuraafaadka soomaalidu qaar aaminsan yihiin. qadarta rabbi iyo qalinkiisa kolka laga yimaado labada qof iyaga ayaa dhisan kara dabar kasta oo isku haynaya. geeridu waxaan qabaa inay tahay waxa kaliya ee kala kaxayn kara labada qof. axdiga kolka laga yimaado is-aaminaadu waa iyadana qodob kale oo aan ka maarmin xiriirka labada qof
aaminaadu waa aragtida togan oo qofka ka fisho dhigiisa kale kolka aad niyadaada iyo qalbigaaga ka dhaadhiciso qofkani inuu yahay qofkaagii waa kuu noqon duruufta iyo nolosha adag iyo aragtida qofkii aad rabtay oo isku kaa kulmaan kolwalka qaarkood waa wax dhaca waa abwaan cabdiqays waxa uu inoo sabirayaa wiilkii la kulmay inantii uu jeclaa oo lahaa nolosha lamaane ha kuu noqdo wiilka waayihiisa nololeed ayaa iska adag waxa uu ku ducaysanayaa inuu ilaahay imrigiisa u dheereeyo oo uu wadka ka raajiyo isla markaasna uu alla ka indhisaabo oo uu ka barin ragga kale ee langedaha inta uu nolosha meel sahan uga tagayo allow daaha iga dilin dadka kale ha iga barin intaan degayo meel roon qodobka kale waa wada xiriirka xadaleed kala fogaanshaha labada qol ee kala durugsan yihiin deegaan ahaan waa mid sababaya xoojin boholyowga ku laran yahay ayaa badanka ka jira hal abuur cabdiraxmaan xaldhiis waxa uu si suudaan ahaan inoogu sabirayaa laba qof oo isjecel si qalfoof ahaan u kala durugsan waa wax dareenka jacaylka ku lamaane waxa ay ku ducaynayaan dhulka inuu alla isku soo dhaweeyo una mideeyo isu dheerinaayo kala dheerinaaye dhulka yaa mideeyo isku keen dhaweeyo agtaadu soo dhiga qofka oo cuntada naca oo cuni waayo cuntada waa xaaladda nafsiga ee uu jacaylku sababo waa dareen durugsan oo si farshaxan suugaanaysan ay ugu soo gudbinayso amran sharaf xuseen waxayna tiri eraygiisa keliya oontaan liqaayiyo ama teedka ii fura aabbaha iyo hooyadu waa wehelka ugu fiican ee qofku helo bal sawiro qofka ay halkaasi ugu jirto hadalka iyo codka wehelka noloshiisu eraygaaga wacane codku iigu ladan yahay qiimuu agtaydiyo uu ku leeyahay maankoo sida aabbiyo hooyu wehel iigu yahay oo aadna waan u jeclee ha iga goyn ilbiriqsiyo gelin iyo ayaan qura